shirkeyga jaraa'id maanta ku qabanayna magaalada hada gobolka Mudug Galkacyo waxa uu ku saabsan yahay saakay toole waxa wafdi balaaran uu hogaaminayo wasiirka amniga oo dhowr wasiir oo aniga kamid ah ay ku jireen maamulka gobolka Mudug senatarada iyo xildhibaanada deegaanka dowladda federaalka ku mata kuwa galmudug generaalada duqeyda nabadoonnada sabadoonnada culimada ururada bulshada dhammaantood oo gacnaha haysta saaka waxa u suurta gashay in dhammaan la qaado oo gobolka Mudug laga qaado isbaarooyinkii sharci darrada ah ee yiilay isbaarooyinkaasi laga bilaabo saacadan dowladda galmudug waxay u sheegaysaa masaafirka iyo dadka reer galmudug iyo dadka kale Soomaalida meesha maraya dhammaan la qaado arrintaasu iyadoo aan wax dhiig ku daadan iyadoo wax dhibaato laga kulmin waxaana goobihii jooga oo si nadiif ah u jooga ciidanka amniga booliska iyo daawiishta iskaashanaya waxa ka soo baxday shirkaas dowladda galmudug ka soo saartay oo amiir wasiirka arrimaha guduhu uu akhriyay waxaa la mamnuucay dhammaanba daraagis soo gala magaalada asatan qamriga oo fara badan deegaanka ku hayay in dhammaanba qamriga uusan soo geli karin gaadiidka qamriga lagu qabto gurigii lagu qabto qofkii lagu qabto waa la xirayaa sharciga la horgeedayaa waxaana loo digayaa dadka reer galmudug inaysan qofka dambilaha ee dambiyada noocaas ku tilaabsada aysan ka daba imaanin aysan damiinan aysan oranin qofaan la xirin hadda oo cid la xirin bayna qof waliba qofkii amarka ka qaato uu maaragtay uu qabto waxaa kaloo laga digayaa dhallinyarada isleh wuxuu waa hadal wuxuu waa isku sawir wuxuu wax saas u sii soconaya maaha ee aan dareensannahay qaar ka mid ah inay quraacda u dhow laamiga iyo meelaha kale ay ku gagambanayaan waxaa la go'aamiyey qofkii qori wata oo aan ka mid ahayn ciidanka galmudug oo aan ka mid ahayn ciidanka koolatanaad oo aan shaqo aan loo diray aan haynin ee lagu arka waddada asagoo wax ku dhibaataynaya la xiri maayo meesha lagu dilayo la xiri maayo meesha lagu dilayo awaamiirta dowladda galmudug soo saartay waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dowladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha meeli marlaan waxaa la qaaday isbaarooyinka sharci darrada ayaa inta u dhexeysa gaalkacyo iyo geliso oo waxaa la wareegay galmudug maxay tahay ballanqaadka aad fidinaysaa in mar dambe aysan dib ugu soo laaban jidgooyooyin sharci darraa inta u dhexeysa gaalkacyo iyo geliso ballanqaadkan fidinayna waxa weeye dhammaanba dal iyo dibad darajo kasta ay leeyihiin ama dowladda ha ku matalaan federaalka ah ama dowladda galmudug ha ku matalaan ama wax garanimo iyo maskax ha ku matalaan ama xoog kasta ha lahaada ama ciidan ha ahaada dadka gobolka mudug degani shirar isdaba joogaha iyo hawlo socday oo maalmahanba lagu hawlana waxaa lagu guulaystay in la iskaga meel noqdo ciddii wadda gasha ciddii qamri keenta ciddii fawdo keenta ciddii kala dambaynta hoggaansan weyda in gacan bira lagu qabto oo wasaaradda amniga looga dambeeyo ayna tahay dambilayaal haatana shirku wuxuu ahaa in haddii la aan maaragtay aan dad saa u sheegno wuxuu su-aasha haddaan usoo laabdana wuxuu kaga duwan yahay awood ciidan iyo ku talagal qorshaysan oo dowladda cusub ee galmudug ay diyaarisay ayaa diyaar ah cududdii iyo kala dambayntii iyo nidaamka hawsha qaban lahayna waa diyaarinay waana diyaarsanay maleeshiyaadkii hubaysnaa intaasi jidgooyooyinka iyo u taallay inta u dhexeysa gaalkacyo geliso oo aan ognahay inay yihiin dhalinyaro badan oo aad u hubaysan maxaa iyagu u qorshaysan waxaa loo qorsheeyey dhalinyarada hubaysan ama tiknika ha wataan ama kuwo kale ha wataane qaar ka mid a waxaad ogtihiin in haddeerba gacanta la geliyey dowladda galmudug inta kale ee hartana intana waa ka sheegaya waana loo sheegay waxaa loo cayimay ama loo cayimayaa goobo ay degaan lagu kafaalo qaado noloshooda lagu tababaro lagu kala saaro qaabka ay ciidanka ugu kala darajo sareeyaan ayaga iyo hubkooda waa lagu qarabeynayaa waxayna ka mid noqonayaan daraawiishta galmudug ee sugi doonta amniga iyo horumarka iyo wanaagga galmudug saaka u bilowday cududda sugi lahayd ayay noqonayaan intii tababar looga baahan yahay qaab ciidan loo habeynayana
meelihii loogu talagala waxaa kafaala qaadaysa dowladda galmudug wasiirka arrimaha gudaha ayaana loo xil saaray arrintaas wasiirka amniga ayaana arrintaas loo saaray axmed macali faqiih isagana haddii la ku leeyahay dowladda wakiil uga ah saacadaha soo socda iyo saacadaha soo socdana dhallinyaradaas waxay noqon doonaan ama wayba noqdeenba kuwa gacanta galmudug gala oo galmudug la shaqeeya arrimaha waxyaabaha ammaanka dowliga magaalada gaalkacyo si weyn ayaa dhibaato ugu hayaan dowladdu arrintaas maxay ka qaban saaka waxaan tagnay oo aad looga yaabiyey buuro dhalooyin ah oo qamri ah oo Ethiopia nooga soo gala magacii ku yaala waxa weeye qofkii lagu qabto qamri ka ganacsanaya cabbaaya sita gaariga lagu sido iyo guriga lagu sido waa lala wareegay gacan bilan waran waxaan u aqoonsanay qamrigu inuu yahay cadawga koowaad ee galmudug ka jira